بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. عيدكم مبارك، عيد wanaagsan، كل عام وأنتم بخير. runtii waanta waa maalin weyn, waa maalin ciida, waa maalin farxadeed, waa maalin ummadda islaamku ay aad iyo aad u faraxsan yihiin, waa maalin tilmaan ku astaysan shacaa'irta waaweyn ee islaamka. اخواني في الله maanta oo kaleeto waxa weeye waa maalin aanu soo gudanay waajibkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ina saaray, rukni weyn oo arkaanta islaamka ayaan soo dhamaysanay. horta sideedaba saad ogtiin ciiduhu waxa weeye macnaheedu labada ciidood Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay oo ciidul fitr iyo ciidul adha. maanta waxa weeye waa maalin ciidul fitr weeye. ciidul fitrigana waxaad ogtihiin waxa gadaashiisa waxay dhacday markii la soo gudtay ruknigii weynaa ee islaamka oo mid kamid ah oo ah soomkii ayaa la soo gudtay. oo islaamkeena waad ogtihiin waxa la buniyay al-islaamu ala khamsin, diinta waxa lagu dhisay 5 tiir, marka shahaadada la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasuulullah wa iqaamis salaah wa itaa'iz zakat wa sawm ramadan. sawm ramadan kaas markuu dhamaado farxad lagu cabirayo alxamdulillah, ilaahay baa noo dhameeyay aweeye. marka walitukmilu al-iddata walitukabbiru allaha ala ma hadaakum wa la'allakum tashkurun. ilaahina saasuu yiri inaad tiradii aad dhamaystirtaan, markaad ilaahay dhamaystirtaanna wala'allakum tashkuruun, waa ana ilaahay ku shukrisaan. marka maanta waa maalin shukri weeye oo ilaahay subhanahu wa ta'ala baan ku shukrinaynaa. maxaan ugu shukrinaynaa? ilaahay inuu kaalmeeyay ala siyaami wal qiyaami wat taa'ati, wixii khayr ahayn soo sameeyna bishii barakaysaneed ramadaan, ilaahay inuu caawiyay ee inuu kaalmeeyay ayaan ku shukrinaynaa. maxaa yeelay anaga tabarteena iyo awoodteena ma ahayn, cimriga aan ku soo gaarnay ilaahay asaga ina siiyay, irsiq aan cunayna asaga ina siiyay, wax kasto oo dhexdiisa soo samaysanayna ilaahay asaga ina siiyay. marka maadaama maalintan waa maalin farxadeed, waa maalin shukrin weey. ilaahay subhanahu wa ta'ala baa lagu shukrinayaa. mu'miniinta maanta oo kaleeto waxa weeye waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay qabsanayaan ciida fidriga waxaa kamid ah inay horta zakatul fidrigood ay bixiyaan. zakatul fidrigoodana waxaad ogtihiin farada rasuulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fidri, yani zakatul fidriga nabiga asaga ay waajibiyay. marka waa waajib oo xukunkeedu waa waajib weey. marka zakatul fidrigana waxaad ogtihiin mar haddii qoraxdu dhacdo way waajibaysaa, oo macnaha bishii barakaysan ee ramadaan ay dhamaato shawaal la arko way waajib bay noqonaysaa. muxuu ahaa ilaa waxa weeye laga gaarayo salaada laga tukado, oo xilliga la bixinayo waxa weeye waa qabla salaatil ciid. ciidda maaragtay intaan la aadin in la bixiyo ayaa la rabaa. marka maalinta ayada marka waxaa la muujinayaa islaamka midnimadiisa la muujinayaa. maaragtay islaamku inuu isku caqiido yahay la muujinaya, islaamku inay isku dad yihiin baa la muujinaya. markaas muslimiinta waxaa loo jideeyo kaleeto salaad, haddana salaadaas oo loo bixiyay salaatul ciid ayaa la yiraahdaa. salaatul ciidkaas hataa meelaha bannaan ee waaweyn iyo in la isugu tago ayaa si sunna ah. haddii ayna masaajida lagu tukadaan ayadana waa iska caadi, laakiin waxaa fiican baa la yiri in la isugu yimaado meelo musalla ah oo maaragtay dadku ay ku wada cibaadaystaan, in la isugu yimaadaan ayaa wanaagsan. marka waxa way maalintan marka oo sidaas marka ilaahay subhanahu wa ta'ala nicmadiisa iyadoo loogu shukrinayo ayaa isu soo baxaas weyn ee mudaaharaadka ayaa la sameynaya. mudaaharaadka muslimiinta isu soo sameynayaan wuxuu xambaarsan yahay horta koow inay faraxsan yihiin oo nicmo oo dabaaldeg buu xambaarsan yahay. wuxuu xambaarsan yahay jimatuurad cadowga ilaahay in loo jimatuurta gaalada in la iska celinayo, oo macnaha saa waad aragteen maanta dhan takbiir baan qaadaynaa. maxaan qaadaynaa? laa ilaaha illa allah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. fiiri waxa weeye waa azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. fiiri laa ilaaha illa wala na'budu illa iyyah, ilaahay ma qof kale caabudayna ma jirto, mukhlisiina lahu diin walaw karaha al-kafirun walaw karaha al-mushrikun. fiiri gaalada hadiyeen baa leeyahay, annagu laakiin muslimiin baan nahay. marka fiiri waa mudaaharaad dadka muslimiinta ay isugu soo baxayaan oo ay tawxiidka muujisanayaan, oo ilaahay subhanahu wa ta'ala maartay ugu shukrinayaan, cadowgoodana ay jibinayaan, oo macnaha ay mudaaharaad lagu jibinayo cadowga. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى واجسي وكيلها السحابية أي لها كنا نخرج الحيض حتى مارتي ذوات الخدور معناها حتى قبلها يرير حتى عادوين كقبا أما يرير كأوان سوب بحنجرة قبلها حتى ولا سوب بحنجرة حتى هذه قبل مارتي عادة لها كذال بيكفر سنجرة مصلاه ما يدرك ما يسود حجر جرين ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. يعني سوى طيب قران مارتي baryada ilaahay iyo macnaha inay uga qayb galaan khayrku u asiibo. marka sidaa darteed baa waxay tahay waxyaabaha maaragtay maanta oo kale sunnada ah waxaa kamid ah in yani muxuu ahaa dadka in masaakiinta lagaga farxiyo zakatul fidriga, oo maaragtay la yiri oo ka deeqa la yiri dawaafka maanta oo kaleeto nabi wuxuu yiri wareega masaakiinta maxaa la rabaa? adu maadaama aad faraxsan tahay
walaalaha kale fuqarada inay kula farxaan baa la rabaa oo zakaatulfidri aad siiso oo xaqal ciidka la dhiibo oo maarata ayadana oo lagaga farxiyo oo ilmaha maarata dharka ka ugu fiican loo geliyo oo muxuu dadka waaweyn ee dharka ugu wanaagsan ay gastaan waxaas oo dhan waa sunno way waxa kale bisha ayadana ciidan oo kale la sunneeyaa in qofku marka uu soo baxayo oo kaleeto maanta maadaama oo muddo uu soo soomanaa si inuusan soomanayn u muujiyo in waxaa sunnaa inuu wax yar soo cuno sida maarata ma la mid maaha ciidda kale ee ciidul adxaaga ayada waxaa weye lama sunnaynin in horey wax laga soo cuno de wixii qofka asagu sidiisa maaratay baahida xun ay hayso oo asagu markaa aan ka maarmayn oo wax kale laakiin sida caadiga waxaa weye qofka waxaa la rabaa inuu maaragtay marka la soo aadahayo musallaha ama meesha la soo aadahayo zakaatulfidrigiisa uu soo bixiyey muxuu ah wax yaroo timira uu soo cunay dharka ka ugu qurux badan uu soo xirtay ehelkiisa uu ka farxiyey maaragtay inuu masallihii soo aado asaga oo markaa takbiirtii ilaahay weyneynaya oo markaa uu kasoo qayb galo isu soo bixi muslimiintu ay isugu yimaadeen dhegaysto wacdiga khayrka dhegaysto muxuu ahaay oo maaragtay tahniyadda marka uu ka qayb galo oo muslimiintu isu tahniyadeeyaan oo sida asxaabtuba ay dhihi jireen dadkii wanaagsanaa markii ciidda la gaaro taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal bay isdhihi jireen taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ilaahay maaragtay annaga idinka allah idinka aqbalo wixii wanaaga aan soo samaysan allah inaga aqbalay dhahayeen saasay isugu tahniyeynayeen in maanta kale waxaa la rabaa qalbiga in la furo oo xiqdiga iyo xasadka iyo xumaanta waxaas oo dhan laga saaro waxaa la rabaa maanta maadaama maalin ciida tahay in maaragtay dadka ehelku inay isbooqdaan oo is ziyaartaan oo kaleeto silatul arxaamku wax saaran ma ah maxaa yeelay waad u waadaaro imtixaan baan joognaayo mararka qaarkood waxaad u malaysaa dadka qaraabada inay isugu necab yihiin bal u fiirsa adiga dadka qaraabada ayaga isugu necab maxaa yeelay dadka qaraabada sidaa darteed baa qur-aanku aatida alqurba xaqahu ilaahi yidhi qofka qaraabada adaa xaqiisa sii isagaa iskale ogow xaqa asagaa iskale oo muxuu ah inaad booqato xaq buu leeyahay inaad hadal wanaagsan dhahdo xaq buu leeyahay inaad xiriiriso xaq buu u leeyahay wixii aad u tari kartood kaga rontahay inaad u siiso xaq buu kaaga leeyahay maxaa yeelay waaatid alqurbaa xaqahu xaqiisa hala siiyaalay maxaa yeelay dadka kale fiiri dadka kalaba kaaga ron qaraabadaas leedahay marka qaarkood maxaa yeelay dadka kale markii wax la siiyo waxaa weeye shukran waad mahadsan tahay ku dhahan qaraabada waxaa laga yaaba intaad wax siiso shukranna inayna kurin waaba ugu yaraysa inay ku dhahaan baa laga yaabaa marka sidaa darteed ayaga waxaa weye xaqoodii yaad siisay marka sidaa darteed maantoo kale waxaa fiican in la isbooqdo qaraabadu isbooqato laiscafiyo si ilaahi subxaana wa tacaala uu kuu cafiyo maanta oo kaleeto waa maalin farxadeed xataa farxadda waxaad ogtihiin in la muujiyo maanta oo kaleeto marka waa shukru nicam nicmadii ilaahay noo galay baan muujinaynaa marka maxaan ku muujinaynaa farxad baan muujinaynaa farxaddaas waxaa ka mid noqon kara inuu qofku maaragtay in la ciyaaro oo kaleeto maxaa yeelay waad ogtihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam waana in markii magaalada madiine uu yimid waxaad ogtihiin markuu magaalada madiine yimid nimankii maaragtay ree ansaareed waxay lahaayeen maalmo ay ciyaaraan markaasaa wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu idinku bedelay bu labadaas maalmada jaahiliga 2 maalmood oo ka khayr badan buu idinku bedelay labadaas maalmoodee waay waa ciidulfitri iyo ciidul adxa way sidaa darteed baa nabiga calayhi salaatu wasalaam waagiisii كان السودان يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله مساجد النبي افريكان ku ciyaarayeen ayagoo waramo wata ay boodbooday Aisha waa kay leedahay waxa weeye markaan maqalnay huwankii iyo qaylada nimanka Suudaanta ayaa maartay aan fiirinay markaas nabiga iyo Aisha meeshii ka fiirinay wali Aisha waxa weeye dhamanka nabiga ayay ku gambanaysay markaas meeshii fiirsanaysay asagana wuxuu yiri wada ciyaarta duunakum ya bani arfida war hawsha watu yiri ciyaarta wata inaga maxaa malay masaajid dhexdiisa hadii maanta lagu ciyaaro bil ayadoo ciid la joog waxa la war masaajidka ilaahay saa lagu ciyaaraysaa baa la dhig maanta fiir nabiga calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisi ayaa lagu ciyaaray oo lagu boodbooday ciida farxadda darteed marka meeshaas ka garanaysaa in farxad la muujiyo marka wixii munkar uu reeban yahay saw laakiin ciyaartii mubaaxa waa la ogol yahay in maaragtay wixii ciyaaro mubaaxa in la ciyaaro waa wax la ogol yahay oo maaragtay oo sharci weey marka saa darteed baa waxa garanaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa waagiisi maalin ayay ciid tahay waa kii 2 gabdhood oo jaariyateen oo macnaha 2 gabdhood oo ku heesahaye guriga nabiga calayhi salaatu wasalaam Abu Bakar uu soo galay oo uu yiri amizmar min mazamir shayatin fi bayt rasuulillah sallallahu alayhi wasallam war meesha ma waxaad ku haysaan muxuu ahaay qalab shaydaan ma meesha ku haysaan mizmar shaydaan ma ku haysaan turumba shaydaan ma ku haysaan markaas wuxuu yiri dacuma ya Abu Bakar dhaaf wi Abu Bakar oo gabdhaha kale wuxuu yiri markaas maxaa loo lacan li ya'lam al yahuud anna diin fi diinina fusha ha ogaato yiri nimanka yahuuda la yiraahdo diintanadu inay diin loo baxsi ay tahay oo macnaha الحنفية بعثت بالرسالة الحنفية السمحاء وحلا إلى صدر دينتي جل سنيد حنفية هذه السمحاء إذا ما سمحاء كفهمتي إن حتى أمر كعزون النبي عليه الصلاة والسلام وأوقر على أصحابتي يعني إن لا عياره
maxaa yeelay diintu macnaa weji macbuus ma aha fiir diinta islaamku diin weji macbuusa maaha oo weligeed un wejiga in la kaduudo diin sheegaysa maaha waxaa la rabaa mararka qaarkood in la farxo muxuu diintanada si ay u ogaataan fiiri xataa cadowga yahuudda fiiri yahuud ood ogtihiin dhibkeeda yaa wuxuu yidhi si ay yahuudi u ogaato diintanada inay fasax leedahay oo fasax leedahay oo luga baxsi ay leedahay macnaa muusan fiiri yahuud maxaa naga galay waa gaale ma jirta yaa meeshaan sababto waxaa weeye waxaa la ilaalinayaa ra'yul caam wax la yidhahdaa jira miidiyaha ra'yul caamka waa maxay haddii lagu dhaho waryaa adiga diintiinu waa argagixisa haddii lagu dhaho argagixisa ma aha waa inaad dhahdo inaanan argagixisayn waan kuu sheegayna maxaa yeele hadhow haddii lagaa qabsada ra'yul caamka oo lagaa dhaadhiciyo diintaada waa diin xun aday kugu soo noqonaysaa diintay kusoo noqonaysaa marka waxaa rabaa diinta in laga dhisaa la rabaa hawada sidaa darteed bu nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi si ay yahuudi u ogaato marka waxaa la muujinaya marka farxaddaasa la muujinayaa waa laisu tahniyeynaya waa laisbooqanaya dhar fiican baa la xiranaya marka waa shukrun linacam ilahi subxaana watacala loogu shukrinayo waana cibaado maalintaa farxaddaasaaba cibaado ah farxadda ma aragtay kibirka ayaa la diidaya moogiye farxadda wanaagsan qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu bu ilahi fadliga ilahi ha lagu farxaa layidhi wa biraxmatihi markaasaa lacalakum tashkuruun ilahay inaad ku shukristaan darteed baa marka sidaa darteed baa marka maanta marka waxaan joognaa maalintaan ilahay ku shukrin lahayn maanta sidoo kaleeto waa maalintii abaalmarinta jaa-izada abaalmarinta ilahay uu bixinayo wey marka ilahi subxaana watacala waxaan weydiisanaynaa wixii acmaleen soo qabanay ee soon iyo salaad iyo wixii khayr ee ummadda islaamku ay qabatay inuu ugu bedelo inuu ku siiyo khayr wixii xumaana naga dhaafo nooguna bedelo wax wanaagsan noogu bedelo nagana dhigo kuwa ilahi subxaana watacala uu ka aqbalo inuu inaga dhigo كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم وعيد سعيد وعيد ونعيس عيد مبارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.